بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada walaalaha sharafta badan ee ku xiran janalkeena caafimaadka. Waxaan ka hadli doonaa maanta 10 cunto ee sababa cudurka kansarka. Jirka bini'aadamka qaabka uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala u sameeyay, cunto kasta oo uu qaato siyaabo kala duwan ayuu u isticmaalaa amaba jirka ooga faa'iideystaa. Cuntooyinka la shiila inta badan ayaa ah kuwa aan caafimaadka u wanaagsaneyn. Waxaana halista cuntooyinkaas la shiila sii kordhinaya maadaama ay leeyihiin sonkor, milix iyo dufan, kuwaasoo dheefshiidka cadaadis badan ku abuuraya. Markasta oo aan qaadano cuntooyinka shiilan, kadibna uu cadaadis kala kulmo jirkeena, waxay keenaysaa in jirku uu u nuglaado inuu ku dhaco cudurka halista ah ee kansarka. Haddaba, 10 cunto ee la isku waafaqsan yahay in ay sababaan cudurka kansarka waxaa ka mid ah: 1. Hilibka jirka ah ee la dubo. Si aan uga badbaadno halista cudurka kansarka, waa in aan iska yareyno hilibka jirka ah ee aan isticmaalayno. Hilibka cas ama jirta ah ayna la socoto baruurta, haddii aad toddobaadkii mar isticmaasho waa uu ku wanaagsan yahay, wuxuuna yareynayaa khatarta cudurka ee qofka soo wajihi lahayd. Laakiin waxaa wanaagsan in aadan iska badinin amaba aad ka yareyso waxyaalaha cusbada leh ee ku dareyso. 2. Sharaabyada warshadaysan. Sharaabka warshadaysan sida kookada, bibsiga, sprite-ka, 7up-ka iyo wixii la mid ahba waxaa ku badan sokorta. Sidoo kalena waxaa laga sameeyaa maado la isku daray oo biyo lagu qasay kadibna la warshadeeyay, waxayna si aad ah u kiciyaan sonkorta jirka. Sharaab kasta waxaa ku jira rinjiga caramel oo lagu midabeeyo. Rinjigaas oo ah mid aan dabiici ahayn oo laga sameeyay kiimikaalka loo yaqaano carcinogenic. Waxaana wanaagsan halkii aad cabbi lahayd sharaab xiran oo warshad soo maray in aad cabto biyo nadiif ah oo aan waxba ku dhimeynin. 3. Cuntooyinka gasacadaysan, gaar ahaan yaanyada. Cuntooyinka gasacadaysan ee warshadaha soo mara waxaa ku jirto cusbo aad u badan, oo haddii aysan cusbo badan ku jiri lahayn waxaaba adkaan lahayd in waqti kadib la isticmaalo. 4. Saloolka ama daangada korontada lagu kariyo. Guud ahaan daangada waa cunto fudud oo caafimaad qabta, balse waxay tahay dhibaato markii aad cunto daanga lagu kariyay koronto ama microwave, taasoo keenaysa cudurka kansarka. 5. Saliidda warshadaysan. Saliid kasta oo warshad soo marta ma ahan sidii ay asal ahaan lahayd, maxaa yeelay si ay u xumaanin waxaa lagu daray nooc kiimikaal ah. 6. Macaanka aan dabiiciga ahayn. Dadka qaar waxay sokor ahaan u isticmaalaan macaanka ama sokorta aan dabiiciga ahayn, balse sokortan lafteeda ma ahan mid caafimaad ahaan u wanaagsan. Waxay jirkaaga ku sameynaysaa in uu garan waayo tamartii uu maalinta u baahnaa in uu helay iyo in kale maadaama ay dabiici ahayn. Haddii ay maadada aspartame ay ku jirtana, halistooda way sii badanaysaa oo waxaa ka abuurmaya sun caafimaad, suntaasoo caafimaadka halis u ah oona keenta cudurka kansarka. 7. Kalluunka warshadaysan. Kalluunka dabiiciga ah wuxuu leeyahay faa'iidooyin caafimaad oo aad u badan. Kalluunkuna wuxuu ka mid yahay cuntooyinka ugu caafimaadka badan ee aan lahayn dufan wax u dhimaysa caafimaadka qofka, balse wuxuu kalluunka caafimaadka halis ku noqonayaa oo kansarna keenayaa haddii la warshadeeyo oo cusbo iyo maadooyin kale lagu daro. 8. Qudaarta bacriminta ku baxday. Qudaarta waxay ka mid tahay cuntooyinka uu Ilaahay abuuray kuwa ugu caafimaadka badan. Waxayna qudaarta caafimaadkeena u wanaagsan tahay markay si caadi ah u baxdo.
balse marka bacrimin iyo daawooyin kale lagu daro ayay halista qudaartaasi badanaysaa. Inkastoo ay jiraan habab badqabkooda wanaagsan yahay oo khudradda lagu bacrimiyo, balse nasiib darro aad bay qaali u yihiin oo dadka isticmaala aad uma badna. 9. Qamadiga warshada iyo marxaladaha kala soo mara. Qamadiga waa uu wanaagsan yahay, waana muhiim inuu ka qayb noqdo cunnadaada, balse marka uu soo maro warshada oo bur ama daqiiq loo bedela, waxaa ka baxaya fitamiinada. Marka taas laga soo tago, burka waxaa lagu qasaa gaaska koloriinka ah si midabkiisa caddaan looga dhigo. Taasi burka ka dhigaysa mid aan nadiif ahayn oo sumaysan, waxayna jirkaaga ka samaynaysaa meelo u jilicsan kansarka. Sidaa darteed, waxaad mar kasta ku dadaashaa in aad akhriso burka aad iibsanayso, waxaadna qaadataa kan aan midabkiisa la caddaynin. 10. Hilibka warshadaysan. Hilibka la warshadeeyay ayaa inta badan sahla khatarta cudurka kansarka. Muuqaal iyo dhadhan ahaan waa ay wanaagsan yihiin, waxa ayna yaali karaan muddo dheer, balse xaqiiqatan cunnadan ayaa marnaba u wanaagsaneyn jirkaaga. Cunidda hilibka ee maalin kasta ayaa waxay kordhinaysaa khatarta ah in uu kansar kugu dhaco. Waan filayaa walaalaha qaaliga ah in aad ka faa'iidaysateen videogan. U share garee walaalihiina kale si ay uga faa'iidaystaan. Wassalaamu calaykum.